بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ka hadlayaa dhismaha maamul goboleedka waqooyi bari oo dhawaan 3 casho ka hor lagu dhawaaqay maamulkaas lagu dhawaaqay warqadda uu ka soo qoray madaxweynaha Puntland madaxweyne Dani Cabdullaahi Dani uu ka soo qoray baa arrin aan laga aamusi karahaynin marka waxaan doonayaa bal shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland oo dhan meel kasta joogaan iyo shacabka gobolka hadda cusub maxaan dhahay to waqooyi bariba inaan u qeexo war maamulkan maxaynu u dhisnay markii u horeysay Siciidan maanta uu diiday yahay 27 bilood sano ayaa ka soo wareegtay alxamdulillah waynu ku soo caaramaalay Puntland saddex principal baynu u dhisanay saddex principal in badan waynu ku soo caaramaalay laakiin Siciidani wixii uu duminaya hadda oo meel fog buu hadda gaarsiinaya oo Puntland in laga qabto ayuu mudan yahay maanta meel lagu eegan kara maaha maadaama uu warqad official soo qoray oo yiri aqoonsan maayo oo iyaga baahan isaga shakhsiyan iyaga baahan marka aan in yar dib u noqdo oo shacabka Puntland shacabka waqooyi bari Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaalida oo dhan aan u qeexo Puntland saddex principal baa loo dhisay waxa loo dhisay in Somaliland waati markiiba ay asana markay soo gashay ay ku dhawaaqdeen oo goosanayeen 91kii annaka qolyaha reer waqooyi oo warsangal iyo dhul baanta markiiba waxaan ka garab sameeynay markii ereyga ku dhawaaqeen 91kii ku dhawaaqeen 92kii waxaan ku dhawaaqnay oo busta ka jafnay USB xusbi siyaasi oo aan xilligii xorriyadda la dagaalamayay aanu sameeynay buu ahaa annaka afar reer ah warsangali ciise gudabiirsay iyo dhul bahante iyadoo xilli adag ay tahay oo ninka saylax ka imaanaya iyo ninka ka imaanaya mataqaana boorama ka imaanaya iyo barki ka imaanaya iyo gabile ka imaanaya marka uu hargeysa iyo burco iyo berbere dhulkaas soo socdo dawladda Ingiriisku ma ogolayn dad noocaas oo soconaya oo waxay wadaan aan la aqoonin dhaqdhaqaaq aan la ogeyn may ogolayn qarsoodi bay underground movement bay ahayd haddana public buu markiiba isu bedelay oo markii la saxano duleedkeeda ay u baxeen meel duleedkeeda iyadoo askarta Ingiriiska laga qarinayo iyo dhisagiisii iyo adduunkiisii iyo maamulkiisii buurta gol khaatimo loo bixiyay oo duleedka la saxanooda baa lagu qabtay halkaas horta lagu soo dhisay marka USB-daas iyadoo la leeyahay war marka 57 dhamaadkeedii bay ahayd 58kiina waa bilaab mirbayba markaas waxa la yiri war maxaynu ka yeelaa waqooyi Soomaaliya iyo koonfur Soomaaliya ba 2 sano kadib way xiroobayaan maxaynu ka yeelaa midnimo inuu raadino maxaynu ka yeelaa goboladii kale Djibouti Jigjiga iyo mataqaana Gaarisa maamulada gumaysiga loo gacan maxaynu ka yeelaa istiraatiijiga fog ee wadaniga ee masiir Soomaaliyeed ee ummad Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya baanu ka shaqeynaa ilaa intaas okay xisbigii baanu busta ka jafnay Cabdullaahi Yuusuf waxa dhacday marka waana tuuga marka aan sameynayno waxa dhacday marka arrimo badan baa dhacay marka waxaan ku jiraa qodobka in Soomaaliland inaan la aqoonsan baan mataqaana aan ka soo qaadnay in arintaas baa mataqaana aan u sameeynay qodobka ku xiga waxa in dib loo casuumo jabhadihii koonfur ka jiray 15 jabhadood baa jiray 10 kamid koonfur bay ka jireen 10 kamid koonfur bay ka jireen waa 15 jabhadood jabhada qaar baa urur ahaa sida USB oo kale to waxa lagu shiri jiray mataqaana Ethiopia lagu shiri jiray Bahardar iyo meelahaas ku shiri jireen iyo Arsaba iyo 5 sano 6 shir markii la qabtay oo lagu heshiin waayay oo muran badan ka taagay oo inta la soo celcelinayay Ethiopia wada wax Ethiopia gacanta kula jira oo bay ahayd baa la yiri shirka toddobaad waxa la isku afkartay kii lixaad waxa la isku afkartay shirka toddobaad waa in dalka gudihiisa la tagaa dalka gudihiisana waa in laga dhisaa dawlad lagu soo dhisaa markaas la yiri xagaa nabad aynu tagnaa markaas la yiri Cabdullaahi Yuusuf de Boosaaso meel ka nabadsan ma jirto gacantu ku hay gacan biru ku hay runtii Allah u naxariisto ninkaas shaqo badan buu Soomaaliya soo qabtay inkastoo dad badan ay u warhaynin marka maalgelin lama siinin isaga ayaa maalgashintiisii raadsaday isaga ayaa meeshiisii diyaarsaday jabhadihii iyo ururadii halkii baa lagu martiqaaday wax lagu kuma ilahayn shisheey wax lagu kuma ilahayn markuu diyaariyay oo shirki oo 97kii u dhici lahaa oo la diyaariyay ba ururadii koonfur ka jiray kii ugu awood weyn wuxuu ahaa UNC SNA oo caydid markii hore Allah u naxariiso uu haystay laakiin markii uu dhintayna 96kii August 2 la dilay waa 96kii
marka deedan 7kiina waa marka wiilkiisa markiiba qabsaday wiilkiisa marka maarin ahaa baa qabsaday marka xur shirka tagi mayno maadaama koonfur ay ugu adkaayeen bay mataqaana intii kalena koonfurna way baaqdeen wuxuuna ku Xuseen Cadid marka ay qeyl uga dhigayay Abdullahi Yusuf madaxweyne loo dooranaya oo hadii loo doorto prime minister baa loo ogolaa laakiin dadkii waxay u sharxeen markiiba ninkani maarin baa wiil yar oo maarin baa Mareykanka ciidanka Mareykanka ku ahaa laba sano ba Soomaaliya joogay isagoo maarin abu joogay therefore waxa la yiri uu ka soo fakaday kagama tagin si sharci uga bixin uu ka fakaday Mareykankuna de askari ka fakaday meesha rabaa ku soo qaban karaan Soomaaliya marka laga rabo jabhadii dagaalkii iyo ciidid waxay soo xil ula dagaalameen oo maartay Black Hawk Down aduun qalad badan Mareykanku waa tuu sameeyay oo maartay mees badan buu meesha naftiisa ka sameeyay marka Xuseen Cadid markuu diiday oo kuwii ay diideen baa mataqaana Qaahira waxa uu yartay u gacan haadisay war jabhada oo kale Qaahira imaada heshiis baa la saxeexay bala tiiba la arkay in mataqaana waxyaabo badan oo khalad ay ku jiraan waayo masaaradu daacad kama ahayn markiiba maartay jabhadii waaweynaa way ka soo dareereen waxa la yirmay halkaas arinta ku baabaaday Qaahira in Nairobi baa la yimi ay min Addis Ababa la yimi Addis Ababa markii la yimi jabhad ururkii USB oo maxaa Cabdi Xaashi Allah u naxariisto rugcada iyo Cawad Xasharo waa dhulmaantina warsangali baa waxay u soo jeedeen Abdullahi Yusuf war hadii qolayaha jabhadahaas Abdullahi Yusuf waxaan in la dhisay wuxuu ahaa Soomaalinimo iyo dawlad Soomaaliyeed iyo dib in loo soo celiyo dalkii iyo wuxuu ahaa sarkaal Soomaaliyeed halkaas buu isagu mataqaana ka duulay marka qolyahan waxay u aqal celin waxay yiraahdeen war hadii qolyihii xagga ay imaan waayeen oo ay diideen idinkuna aad oo reeri barbaraata tiino soo diyaar garowdeen talan soo jeedinayna annaka oo waqooyi hortaagan Soomaaliland inay dhisantaan annaka hortaaganay Soomaaliland inay dhisanto amin inay dhisanto maaha ha dhisanto inay go'do oo la aqoonsado baan annaka ka soo horjeednaa adigana nimankii xagga hartada wax ay kugu sameeyaan waa u jeednaa baynu maamul sameeyno Soomaaliya dib soo celiya Soomaaliland xari ku xira gacmaha ka xira lugaha ka xira asaan aqoonsi ay u helin waayo dhulbahanta iyo warsagali dhulbahanta iyo warsagali de waqooyi qayb kamid ah waqooyi bari iyo waqooyi galbeed bay Soomaaliya ay Soomaaliland ahayd de waqooyi bari oo dhan marka uu israaco cid aqoonsanaysa maalintii ma jirayso therefore sidii Abdullahi Yusuf uu yiri wallahi sax weeye arintii baa lagu dhaqaaqay marka waa December 1997 waa markii shirka xagga Qaahira laga soo noqday la socdaya December 1997 weeye marka laakiin qoliyihii SSDF way saystaan oo Abdullahi Yusuf way la dagaalameen oo way qaybsan yihiin oo meel xun bay kala maraysaa markaas war kuwa waxa ka daran kuwan la soo heshiyo horta kuwa kan adigu intaynan bal soo imaan isaga time la siiyay 4 bilood Abdullahi Yusuf Allah u naxariiso wuxuu mashquul ku lahaa inuu mataqaana nimankii SSDF ee ka soo horjeeday ee dagaalka la galay qaar badan bay ahaayeen way kala jajabeen dagaal xun bay la wada galay la soo heshiiyay kuwii soo dhirinay waa soo waday January February March April May ila May intaas soo waday May aakhirkeedii baa muleysiyay marka USB ya marka soo imaanaya waxay suubanaya SSDF oo Abdullahi Yusuf oo 5 bilood soo waday soo dhirinay mataqaana wixii deegaankaas ahaa USB iyadoo diyaar ahayd cid ay dooranaysan hore u soo diyaarsatay oo go'aan ku soo gaarsay ay ku midaysan yihiin xilligan maanta la jiro Abdullahi Yusuf wax dhaama male dadkaana inna ku baqawan karno waxaan u baahanaa inaynu isku soo raacaan iyagoo wata Abdullahi Yusuf inay doortaan هذا الله ما يمان ولي الشركة اللي سميمان قوانك أي لوك سو قاري حق لوك سو قاري تا أوقات هذا برخاتي كانوا البانا يعني وحكى له كجر حزبي SNDU وحوي أورور أي لهاين سياسي يسوون أي لهاين للكساء يا أورتبله على قرار اللي صاحبها يبقى مارتي سجن جو ميكاها نين على أزهر اللي هذا أنا وحكاها قدامك وحجام بكاها صدح دي مركز مارت ومبي صدح دي مركز اللي سوي معنا يا ومتقنا وحبال اللي سوي كنا يا ولي كلا داسن سيدي ما متقنا اللي سمي جون هالكي اللي سمي جولاي لمات كذا اللي سمي أغسطس فيرس اللي واقعي هرتا سمين تبونتلان ساسي حيد وحمدنا الشعب كبونتلان مدح بونتلان إنه أجا ركبة هذا حبك كمان أجا dadka hadda wax soo maray waxba Abdullahi Yusuf cidoogeed ma jirto ilaa ma taqaana uu soo dhisay markuu soo dhisay la yimi ay arkeen in qolihii kalena ay la jiraan marka saddexdii qodob in badan waa lagu soo caanamaalay maartay dhul nabadgelyo la sii boosaaso
إلا متقانا ماشي اللي يراهدو بلدوينه بابورتا قناعسيو سنة بتقليابا إن بدن كمريين يكون حمر تي كراهين إلا متقانا بلدوينه تي بلدوينه كاذا يجنين إلا بوصاصو قناعسي اسمه ودوينكي wax badan ba mataqaana xagga dhismihii mataqaana in ka soo deefeer ahayn meelaha qaar kood ayan gaarin laakiin in badan bay qodobkaas oo in wax la qabto in dib loo casuumo jabhadii walbar dambe waa loo yeeray iyo hab kala daadsan waa loo yeeray waa la wada hadlay garowan baa lagu qabtay garowo tuuba lagu qabtay shirarkii mataqaana dastuurkii baa lagu soo diyaariyay kasoo xamar lagu asixin doono shaqo badan baa lagu qabtay garowe markii caasimadii garowe laga dhigay qodobka saddexaad wuxuu ahaa in mataqaana Puntland nabadgelyada xagga nabadgelyada xagga maartay ammaanka iyo mataqaana in aad deegaankaas oo dhan loo hagaajiyo gacan bir loogu qabto marka Puntland markay saa u dhisantayba mutakadiba meeshii waxay noqotay horta madaxweynimadiiba hagbad baa laga dhigay galkacayo in meesha la yiraahdo galkacay meesha la yiraahdo garowe meesha la yiraahdo qardho just hagbad bay noqotay marka mustawi laga rabay baa hoos u dhacay sababtoo ah principalkii ahaa mid ka weynaa oo Soomaaliyeed baynu u tartamaynay laakiin tartanka mid hoos u mara ka noqday Cabdullaahi Yuusuf madaxweynuhu ku soo helay dadaalkii badnaa uu sameeyay Allahu naxariisto wax badan buu sameeyay waana la eriyay sababta loo eriyayna waxay ahayd waxa la doonayay horta gacasha Soomaaliya saa ugu jirta halna aan idin xusuusiyo 64 doorashadii Soomaaliya ka dhacday waraq safir Mareykan uu qoray wuxuu sheegay inay ugu tala galeen Mareykanku 200 kun oo doolar 200 kun lacag maaha waxa bay u yartay laakiin marka ay rawa badnay 330 kursi maartay kuraasta jamhuuriyadda in kursi walba mid loo asteeyo ama kii elegada ka hordaay ama kii mucaaradka ka hordaay mid uu la recruit gareeyo mataqal la recruit gareeyo warqada waan akhriyay oo dasirta way ka baxday hadda waa sanadkiisa safarkii marka maxaa ku qoran waxaanu lacagta aan ugu talagalay inay baarlamaanka Soomaalida waa 123 inay soo ku bataan oo soo galaan dhalinyaro aad u xus eega dhalinyaro maskaxda reer galbeedka ah hadday sigiisifoorkii 123 loo asdeeyay inta in la eg inay tartanka gasho ama leegaha ka soo gasho ama ha ka soo gasho mataqaana qolyihii axsaabtii badnaa 88 markii dambe ahaayeen axsaabtii mucaaradka ha ka soo galaan haddii inta loo asdeeyay maanta 2025 oo dalkii burburay oo 34 dawlad xoog la ayan jirin oo inta gacan shaynu ku jiray ilaahan idinku dhaarshay meeqa loogu talagalay in baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada maamul goboleedyada madaxda bilada Soomaaliya imsa loogu talagalay in la recruit gareeyo la qorto oo shisheeyo shaqeyn waayo maanta wax walba way u sahlan yihiin wax walba mataqaan dadkuna oo u jilicsan yahay marka threat-ka weyn baa jira marka Puntland wax laga rabay threat-ka inay la socoto maadaama dalkii ay dhistay oo burburkan uu dhacay in waxay ujeedadu waxay inay burburka la socoto shidan wayba ka sii jaansataybo hawlo kale maartay maxaa kamid ah xilliga Cadam Muuse Allahu naxariisto Puntland waxay ku dhaqaaqday exploration xagga macdanta oo xilliga Cadam Muuse dhulka mataqaana warsangaliga oo la yiraahdo mataqaana majiyahan markii dagaal baa la isku qaaday nin la yiraahdo mataqaana majiyahan group oo reer dhahar ah baa abaabulay dagaal baa laga hortagay Cadam Muuse Allahu naxariisto nin fiican baa wuxuu dhig daadin maayo buu yiri arintii wuu joojiyay waa laga soo gudbay waxa loo soo gudbay farwala qabsaday farwala markuu qabsadayba hal maalin ma beerdareynba markiiba soo majiyahan lagama soo xulin anna waxaan aadaya galgal baan aadaya ninkii majiyahan hogaaminaya Cabdi Jamaal baa la oran jiray waa nin reer dhahar ah ninkii buu soo recruit garay wasiir xigaan buu ka dhigay amniga wuxuu hadda dagaalka gal hadda waa ninkii majiyahan ka joojiyay hadda dagaalka gal buu yiri gal hogaami dagaalka hogaamiyo ciidanka Puntland hogaamiyo dhahar gal maxay ahayd galgal hal galo hal xaaqo maxaa loo socdaa macdan iyo mataqaana dahab iyo adduun baa loo socdaa oo private ah marka uu ninka la yiraahdaa maartay farolo uu markaa sameeyo waxay 2010 July buu bilaabayaa anigoo Qaahiro jooga baan nin wasiir la soo hadlay oo Puntland dara oo dawladii hore raggan islaahayna wallahi waxaan yiri
أول واتي أي عدم إن الله خير سيبان الله نحرسين في عنبها وحكى جرانيا دجالك وكتشوتشي وحدوني معدن إنه يسوساران ومعدن تاون قرطان والشركة اللي وذا يرير مركا هذا لكن كان واحد دجال بنقلي أبو لي هاي وحدوني إنه إذا إحنا حادي بطلانيو nimanka warsangeli iyagoo USB idin yimaadeen shalay dagaal baa loo diyaar garoobay maantana waa kana uma idin kuma imaan imaarto oo masiirkoodii oo dhan lama imaan garoowe in dagaal lagu qaado macnaha hadii la sameeyay waxaan idhaa aan idin dhexdhexaadin anoo Cabdisalaana Puntland iyo nimanka warsangeli dhexdhexaadinaya oo ku dhexdhexaadinaya khayraadka meesha laga helo qaybtooda in la siiyo 35% wuxuun in loo ogolaado marka way ogolaan lahaayeen bisidq way ogolaan lahaayeen wasiirkii waa iga tagay waa wada hadalay mar labaad baan wada hadalay mar saddexaad wuxuu yiri dhiyo iska iloow yiri waa la diyaar garoobay meesha dagaal baa lagu qaaday iska iloow yiri dagaalkii baa lagu qaaday dhowrka cashuur 200 oo hartiya lagu dilay meesha maybe cid kale ku jirtay laalkasay ciidan ku jiraan waa dhici kartaa laakiin ilaa 200 oo hartigii meesha dhistay ah بامشي oo dhinaca labada dhinacba ah dagaalku waa sii socday wuu sii riqmay waa burburmay waa aragtay wadoogeeda kama sheekeen intaas kaga baxaya waxa ku xigay oo kaleeto xilligii faroole nin ugaadeen ah oo jabhadeen oo NLF ah oo jabhada oo dagaalamaya baba taqaana Ethiopia raadinaysa waxa la galka ayuu jooga waxa la noo soo qabtay Puntland noo soo qabta 100 nin oo reer galka ah oo cid walba leh بحافظة قرصور إلى الكسيو دجال الجدلي سيلو بقول نين أنت أنا والله قلنا واحد رجال كعي ويجي بطلع ودين ويجي كبد بدن معي أنت بقول نين بالجدلي يدو نكال هل نين بالرادنا يا بقول ولا دليا يا هل كنيا رادنا يا تكريب رادنا يا عاوي وراوي بريس بالك إنه بطلع ودسنا عاوي بريس بالك مبادئي objective كي إنه كتلا قلي أو بصير صوماليات إنه صوماليا أو نن إنه سكانه ورحكي إنه وضحني هرت واحد صورنا بجري وأنت وادو القاضي إنه وحنا إنه كلا دادن تينو درن وضلك صوماليا الله قصد عيان نوجد درن وحيابها كترن متقنا نجسوا جاري وحنكبيدا حلقي أي SSDF سوق الشيء مجالة بوساسو باش عثمان محمود عن إرادة ومدحونون هذا وكسر شيء أرين فحش الصومالي كان تاريخ الصومالي كان عم بكره هذا قبل المهنتا وقار أي قبان قار أي حديدين قار أي متقنا محن إلى هيتو إذا مجالة يمي حلقي متقنا دولة بربرك أي بربرتي إلا كنتم إنك بدن بيصوروا مال برحدة يصورين قبله ناسه كتر جرين مالك تاريخ ولا ما شاقنا وانو لقني وحان وروحا كدرن ضلكو كلا قوة كنتم قبلود أولا ديلو ويبنو اللي هدي ناس كلا يجري أولا ديلو وروحا كور ضلكي أو بربراه ودولة دي بربرتي ضلكي ما بربرين وردلكي أو كلا قوة بين متقنا إيه ما بكدرن ويحلق الدولة أي شرطيبة مركي SSDF باوجورس الشبابية أي سوق شيء ذلك حدود أي سوق شيء مركبة حاب العمي قلت لهم بيسوق لين علن كي SSDF بالويل كتاج عسكري مد حبش ما حبط كله فتو على إثيوبيا كمشي كتاج مركبة ذلك أنت نجور ضدك وحكي لك جراني الصومال لماذا يكون بس مركبة وحوري وروح صوص عضواه كاسي أجا شبهذا كان لسوه بيجي يا كما هي والاستعمال يا ذلك إلا كلا جويا لدوني إثيوبيا أنا بدأ سيسعطها إثيوبيا أنا يسعطها أي ما تأي رادين يسوع قرشوا مركز صوب بلامي مركز حويان حلسوه إلا أنت جيسوس أنا نسأل أنا أركيني وحنود قال من إنا واحد متقنا أين متقنا نقصو أين نقول بيكين جويتان كواحد كان وحاسو كلا أنت سودي وحاسو ذي حل جاي قال من علي عبد الله يوسف يقول قال من هذه أي من وذا اتحاد كأوري بدن كيسي اتحاد كان بدن بدل كوجيسين هذي أي واحد جريان أو قبتنا واحد حمر إني حسليان بيهاي بوساسو أو شبهدي لهاي أي حباينسو بيدكدي كقبصدين أو يجو رج هير بوساسا أما هير قال كعيبة أي كجران وهذا بيهالكي اللي يسقط قبصدين عبد الله يوسف بيرتع لك الإسلام وعررنا وحي عادين بوراه على ورسنجلي بيقولين متقانا نمكاسي أنا نكلا أو متقانا أنا كسوة جونا ما بين الله سبحانه بحل جاس وقاعدين هنو يمدون هذا وردت كاس سوماليات ماشي حلقة سوداي أنا كأقولاني إن إسكسو بحان وحنا نورد كودي ها آذان ورحمر ها آذان ورحمر ما آذان وحنا وآذان كذا هدنا نجسي قفصدين وقاتي كذا تغير وحنا أن إسكسو حورية بطلان
وحيابها أن متقنا كفيل إن الدوحة أن كفيل وحكمي لاس عنود يكا كورجي الصومال لا تكرار أنا كخص بي ويا أفر وذات أو هوية ومتقنا كوي بركي كذا لقبسنا يكسوق حياة بلاس عنود يمي لاس عنود 1996 كيما هاي بسبتمبر إلا مالتي حمر لسوق اللي متقنا دولة عبد الله يوسف تكرار وحمر عي كارين أنت وين جوجين beesha dhulbaantay way ka diiday waxay yiraahdeen anaku dadkaas haday waxba idin geysan anaku idin siin mayna 10 sano markii tiriyaag inta raadi markii xamar soo galeen baa loo yiraahdaa cadda muusooleer hadda waa inaad ka baxdaan baa la yiri sidaas ay la uga baxeen takadaran noomay sheegin oo ma yaro dhulbaanta waan ka baxaynaa laas caanood amar baa nala siiyay awood baa nolo sheegtay waan ka baxaynaa ee idinku wax iska celiya hubkana waxaan haynaa aan idinka tagno hadday dhiilaan cilmaan qabneen waa noo qariyeen waa naga dhaqaaqeen Soomaaliland baa noo soo gashay 15 sano la dagaalamayay shacabka Puntland awooddoodii iyo dhaqaalahoodii bay geliyeen inay nagala saaraan aad bay ugu mahadsan yihiin waa walaaliheen waa sababta aan annagu ugu dhawaan adeegnay in Puntland dhisanto iyadoo la doonayo mataqaanaa in la tirtiro intaas oo dhan aan soo ururiyo marakan marka waxa soo dhan aragnay markii Puntland oo Soomaaliland oo dhugu beekatay aragnay dawladda Mareykanka oo hoos ordaayo oo loobin ay hoos ordaayaan oo gudiga arrimaha dibadda Mareykanka Congress-ka Mareykanka maalin walba saa loo hoos ordaayo oo loo yaro loo geynayo leeyahay si loo aqoonsado markii ugu dambeysay 2022 Mareykanku wuxuu soo gudaas wuxuu soo qoondeeyay 930 milyan already waa 1 billion oo wax dhiman in la siiyo Soomaaliland lana aqoonsado saldhiga berberana la qaato dadka diasporaha ah loo yaraa aan qabanay oo iyana si leeloobin sameeyay baa ka hortay oo leeyahay war waxa waa qabiil background-ka eega waa shan qabiil baa meesha dega war eega horta guushaas aan gaarnay maadaama aan taa aan sameeyay oo tiraadkaasi jiro waxay noqotay inaan maamul dhiso sidaas maakhir iyo maakhir iyo khaatumo ay ku dhisbeen sidaas ama taqaanaa dawladda federaalka way nagu taageertay wax badan inay way naga leexleexatay laakiin marka wayna taageertay oo ma celinayna sidaas baan ku dhisnay marka muhiimada ugu weyn waxa weeye maanta waxaan xirnay darbi weyn oo mataqaanaa Soomaaliya inay kala go'do qof kasta oo Soomaaliya taa waa inuu soo hambaliyaa dawladda dhisato qof kasta oo Soomaaliya oo damiirka iyo qalbiga Soomaaliya ka baan ka hadlayaa inuu soo hambaliyo ninka la yiraahdo danina isagu bas cibeeyay waxba dhan ma joojin karo waxba ma qaban karo marka shacabka Puntland 7 guurada ugu hambaliyaynaya dhismaha mataqaanaa Soomaaliya North East government ka hadda la dhisay laas canood iyana waa hambalyeynaya dawladda federaalka waa mahad celinaya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh